Gabadha wariyaha caanka ah isla markaana dadka ay aad ku garanayaan Hoodo Garees ayaa maanta meherkeeda waxa uu ka dhacay magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland. Meherka waxa uu ahaa mid qiimo badan, laakiinse dadka ayaa aad ula dhacay qaabka meherkeeda gabadhan u dhacay. Waxaa laga bixiyay isla markaana meherkeedu uu ahaa $20,000 Mareykanka. Sidoo kale 30 milyan oo shilin gabaati ayaa gabadhan laga bixiyay. Meherkeedana waxa uu noqday mid hadalhayn badan ka dhaxdhaliyay gudaha Somaliland oo dumar badan ayaa aad ula dhacay maadaama gabadhan ay ka turjumayso qiimaha gabdhaha Soomaaliyeed. Meherka waxaa ka soo qayb galay boqolaal qofood. Sidoo kale dadkii ka soo qayb galay waxaa ka mid ah mas'uuliyiin xilal ka haya Somaliland kuwaas oo qiimaha gabadhan iyo sidoo kale sayga guursanaya oo qiimo badan u wada haya dhamaantooda ayagoo xishmeynaya meherka gabadhan ay ka soo qayb galeen. Meherku saacado badan qaatay isla markaana halkaas lagu wada sheekaystay kaftan iyo sidoo kale hadallo badan labada reer ay isdhaafsadeen. Sidoo kale goobta meherku ka dhacay gabadhan waxaa loogu dhisay aqal yar oo Soomaaliya isla markaana aad loo soo qurxiyay. Iyadana waxaa la sheegay in aqalka ay ku jirtay taasoo dad badan aad u soo jiidatay. Mar qura waxaa isqabsaday dhowl cadeyn iyo sidoo kale qosol badan maadaama goobta xafladdu ay ahayd goob farxadeed. Meherka waxa uu ahaa mid qiimo badan, waxaana la tilmaamayaa gabadhan in iyada aysan dalban meherka, laakiinse uu jeclaysay saygeeda in meherkeeda gabadhan sidan qiimo badan ugu yeelo. Farxadda iyo damaashaadka iyo dhowl cadeynta ka muuqanaysa wejiga Hoodo Garees waxa uu ahaa mid qiimo badan. Rag badan ayaa gabadhan inay guursadaan tartan badan ugu jiray, laakiinse waqtigii waayaha uu u saamixi waayay ugu dambeyntii. Midkii alla calafka ugu diray ayaa ugu dambeyn gabadhan meherkeeda waxa uu ku qabtay gudaha magaalada Hargeysa. Hoodo Garees waxay ahayd gabar suxufiyeed isla markaana ka howlgalaysa muddooyinka la soo dhaafay telefishinada ka howlgala Somaliland. Magaca iyo maamuuska iyo qadarinta bulshada ay u hayaan waxa uu ahaa mid qiimo badan. Saameyn badan ayay ku dhex lahayd xagga gabdhaha Soomaalida ee ku nool deegaanada Somaliland iyo guud ahaan geyga Soomaalida oo aad loogu wada jeclaa gabadhani. Waxay ahayd sidoo kale abwaanad curisa gabayada isla markaana waxay ka qayb gashay dhowr tartan oo xagga gabayada u ka dhacay deegaano dhowr ah oo Soomaalidu ay degaan.